halkani waa marinka xidhiidhiya dalalka Somaliland iyo Itoobiya sidoo kale soo xidha magaalooyinka Kalabayd iyo Wajaale waana marin muhiim u ah isu socodka magaalada ganacsiyeedka degmada Togwajaale marinkani waxa ka socda dhismaha mashruuca Berbera Corridor bilowga dhismahani waxa la sameeyay wada macmal ah oo ay gaadiidku adeegsan karaan inta dhismaha wadadani uu socdo haddaba 2 toddobaad gudahood waxa ka dhacay 2 shil oo sababay dhimasho iyo dhaawac taasi oo ay sabab u tahay xawaaraha gaadiidku ay ku soconayaan taliyaha nabadgelyada wadooyinka gobolka Gabiley ayaa wadayaasha gaadiidka ugu baaqay inay adeegsadaan calaamadaha wadadani lagu dhajiyay si ay u badbaadaan shacabka gaadiidkaasi saaran halkan inuu taaganahay waa halkii wadadii laga shaqeynayay ee ahayd Kalabayd ilaa Wajaale wadadan waxay tilmaamaysaa in ay wadadan xidhan tahay oo wada xidhan tahay waa calaamadii afargeeska wada xidhan falaadhana waxay tilmaamaysaa information bay bixinaysaa waxay tilmaamaysaa in wadada bidix loo leexanayo oo bidix loo degay hadaba wadayaasha gaadiidku markay arkaan labadan calaamadood calaamada ah informationka ah ee oranaysa wadadan inay xidhan tahay iyo markay arkaan calaamadan sheegaysa keep right wadadan waa la leexanayaa oo waxa loo leexanayaa dhinaca bidixda loo leexanayaa waa inay fahmaan wadayaasha gaadiidku kuna dhaqmaan calaamadaha traffic signs ama calaamadaha wadooyinka ee yaala wadooyinka laga shaqeynayo waa inay dhaqan galiyaan wadayaasha gaadiidku calaamada si waxay ka hadlaysaa iyaduna ay ka hadlaysaa speed limit oo ah babaduu 20 kilomitir wax ka badan in wadayaasha gaadiidku ay ku socdaan inay ka madnuuc tahay haddaba waxa laga maarmaana in wadayaasha gaadiidku maadaama ay arkaan calaamadan limitka cadaynaysa inay ku socdaan socod aad iyo aad u qabow oo ay isticmaalaan calaamada taagan wadada taalla ee oranaysa 20 ku socdo waxa halkaasi ka hadlay injineer Cali Project Manager-ka mashruucani ay sheegeen in dhismaha wadadani uu muhiim u yahay marinka dalalka Somaliland iyo Itoobiya sidoo kale uu qayb ka qaadanayo korkaca iyo sidoo kale socodka ganacsiga Somaliland gaar ahaan magaalada ganacsiyeedka degmada Togwajaale sidoo kale waxa ugu baaqay gaadiidleyda kala duwan ee ku safray wadadani inay xawaaraha dhimaan markay soo gaaraan halka dhismaha wadadani uu ka socdo si ay naftooda iyo shacabka ay u badbaadaan and we want to advise all that not to exceed the speed limits on the detour and also not to use the phone while they are driving. Also, they should not make any overtaking in the detour area to avoid the accident. They should remember that to reach late better than never reach. waxa halkaas ka hadlay injineer Maxamed Cabdi Askar project engineer-ka mashruucaasi waxaan maanta doonaynaa halkan inaanu awareness aan uga fidino bulshada kala duwan ee Somaliland gaar ahaan wadayaasha gaadiidka iyo halwadeennada wadooyinka dhamaantood maalmihii u dambeeyay jidka isku xidha Kalabayd ilaa Wajaale waxa ka dhacay 2 shil oo aad u foolxun oo sababay dhimasho waxaan doonaynaa ka shirkad ahaan inaanu ka wacyigelino dhammaan wadayaasha gaadiidka inay ixtiraamaan calaamadaha aan u dhignay wadooyinka oo calaamad walba ay sheegayso ay tilmaan gaar ah ay siinayso oo ay hagayso dirawalka ama wadaha gaadiidka nooc kasta oo ahaado horta run ahaantii wadada temporary ee imika aanu dhisnay ee aanu gacanta ku hayno tii kale ee permanent-ka ahaa waxa weeye waa embankment road ama waxa weeyaan waa carakaawo taasi oo yacni keeni karta haddii speedkii loogu talagalay gaadiidku in ay ku socdaan mid ka sareeya ay gaadiidkii ay ku wadaan keeni karta inuu dhaskaco dhaskaasi oo sababi kara gaadiidkii inay isku dhacaan ama ay is arki waayaan xoolihii baa maraya dadkii baa maraya saa awgeed waxaan u sameynay speed limit waxa weeye carra ahaan iyo deegaan ahaan aad bay u kala duwan tahay qaybtii hore aanu ka soo shaqeynanay ee Dacarburuq iyo Wajaale imika Wajaale ciideedu waa ciid aad u xun xaqiiqatan run ahaantii waxa weeyaan ciid markaaba dhaskeenaysa labada gaari oo horeeya markay maraan gaariga saddexaad siigadii ayaa u kicinaya sida awgeed ayaa aanu u dhinnay oo speed ka yar calaamadii hore aanu ku isticmaalnay qaybta Berbera side aanu ku isticmaalnay aanu uga yarayno waxaanu ka dhignay 20 daraadeed mar walba waxaanu ogeysiinanaa oo bulshada iyada u sheeganaa inay nagala shaqeeyaan badbaadada bulshada ilaahay baa qadarka haya
waxa weeyaan ilaahay baana wax badbaadiya laakiin waxa la inooga baahan yahay xukuumad ahaan ka shirkad ahaan ka bulsho ahaan inaynu ka wada shaqeyno dhammaan waxa la wixii sababi kara dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burbur way la xaaji telefishinka qaranka